ama hadla marka ya problemka ugu weyn ee Soomaalida isku kalfuran asahda afkiisa ka sheegay midaas oo inay gabdhaha daciifin gabar daciif ma my friend daciif ku sheeg daciif feera laga sameeyay waxaas waa laga sameeyay laakiin daciif ma ay ku sheegay diinta sheegayso laakiin daciif ma daciif waxa ka wada diin ma dhinaag daciif maya horta waxa lagu dhamad dumarka oo aqli ciyaal runta hadii laga hadlo quraan ma lagu sheeg aqli ciyaal runta sababta ku sheego waxa Soomaalida inta ku fikirayso maya sababta السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن أحمد واللي كسر دوال مر لواد مرستحت يوتيوب channel كيجا ما أنت يوتيوب كي وحنا مرتكو ولكن زكي أوتي بليز وحنا إذن كروا أنا يوتيوب كي سبسكرايب كنسان سود ويسان يوتيوب كو سبي هاي ماشان حسان إن كسر قرا يوتيوب كيسا بليز سبسكرايب كره مركب ما أنا زكي ماشان حافرنا point ير أو مهم مرور بين لك هلا بلشدينا inaan labadeen ka wada hadalno hadda isku afgarano iyo hadaan isku afgaran weynaba inaan meeshan soo dhigno wixii adinka ra'yi ah qabtana please commentiga noogu dhaafa waxaan rabaa maanta inaan sharo u sameeyo yal apu official asna halkan ku soo qoraa please asna subscribe gara youtube kiisa marka maanta hadda waxaan rabaa inaan soo topic-keena sii galno zaki ku soo dhaw youtube-kayga mar labaad oo ku dhaw walaal Khalid marka saxaab waxaan rabaa maanta point inaan ka hadalno oo mar hore in laga hadlo oo laakiin laga hadlin pointigaasna waxa waaye ragga Soomaalida iyo dumarka Soomaalida markay isguurtaan oo guurkooda cusub yahay maxay u kala tagaan maxaan sababo inay ku bataan single mother Soomaalida especially Soomaalida single mother inay ku bataan maxaa sababay so maanta xarna ani walaalkay ote in topic-kaas xoogaa yar falanqeeno oo dhaxdiisa galno marka asxaabay please de wixii adin kale ay qabtaan please comment down below so wixii information ee dhan meesha ka arkana so ote maxaa is leedahay wuu sababa guurka markay dhalinyarta isguursadaan inay isku furaan si degdeg ah inkastoo hadda Soomaalidan ku badatay habla yar oo under 18 oo single mother mid halay haystaa mid la way haystaa midna way ka badan yihiin hadhiin kuwa Soomaali joogo Africa Asia America Australia everywhere so maxaa is leedahay wuu sababa furitaanka degdeg ah horta laba mid waay mid koowaad Soomaalideena dhibkan haysto waxa waaye asxaabay يعني شيك المقدار إيو أبتجي إيو إن الإسكود دررت كو مداس اللي بدو قفوا إسفان سنين إني يعني متقانا جورو مركز لا تجاني سن يعني متقانا لا بقفوا هوري إسكو أركن لا بقفوا هوري إسكو فهم لا بقفوا هورا وشيك إسم مستوى قف كان دبي عديس قف كان ميقانو قف كان كلنا دبي عديس ميقانو صح وحكينا أو حتى السداس مد لبان أو حتى صومالي دين وانا قانانيو صح يعني ما أنت هدي oo maanta Axmed oo ay ku imaado qofka xaaskaaga waxa ku dhaysaa in anu meesha adeeg taagana waxa ku arkaa adoo gabar la taagan sax hadday ku aragteen adoo la ha you know first horta ma aha maxaa ma taqaanaa gabadha waa ku arkay baby yani horta sheekada horta baby iyo waxani qurbahan waxa iga jirta sax to be honest sax mid kale waxay tahay Soomaaliya dhibka ka jira waxay tahay labadan qof qoorta isku gelinay ko ilma adeer sax ma fahanti mid kale waxay tahay in ma taqaanaa qof la dhaho waa qaan gaartay horta si odayaasheena miyo waa qaan gaartay waxa ma taqaanaa waa ina kugu daraa صح in hebel ma guursado waa maya grimeer ya dhacay that's nonsense ana asxaab waxaan dhihi lahaa waxa sorta jaahilnimo waay wallahi billaah labada qof hatta hadii la isku daraayo ha sheekeystaan ha wada fariistaan yani ma taqaanaa waqti hala siiyo hadii isfahmayaan ma fahant ya Ahmed صح so anigan waxaan ku darsanaa guurka degdeg waxa keenaa mar walbo in guurka degdeg lagu galo oo keenaa in degdeg la isku furo si fiican Soomaaliya hore waxa u dhacday geedka or lagu galo orda lagu soo dhigaa si fiican mid labaad keenaysan waxa waay guurka degdeg ah labada qof isguursanaysa mar walba waxa fiican inay yihiin dad isfahmay dad isku aqli ah dad isku speed ah dad isku raay ah so labada qof hadaysan isku speed ahayn ama isla socon karin guurkaas horta ma sii jira
mar walba u baabaa mar walban soomaalida intaasaa ku dhaqanaa soomaalida problemka kalena haystan wax waaye mar walba kama fikirno wixii oo kadib guurka kadib dhacay isma weydiino labada qof bini aadanka waxaa raba markay isguursanayaan inay ka sheekaystaan after guur nonta in sariir laysla koro ciyaal la dhalo guurka ma aha guurku waa nolol ka dhexaysa laba qof bini aadan ah waxaa ku kulmay nin iyo naag ciyaala soo galaayo problem badan u wataa so marka la sukaansanayo mar walba waxaa muhiim ah in laga wada hadlo after guur in laga wada hadlo problemka imaan karo for example problemka imaan karo waxaa ka mid ah inay naagta areebo noqoto ama ninka inuu areebo noqoto so waxaa fiican wax walbo in laga wada hadlo before inaysan naagta labada qof is dhageystaan waxaa fiican markuu qofkan problem soo arko qofkan problem soo arko in la wada imaado la noqdo in las dhageysto guriga markii ninka inaagta ku jiraan qof amiir ah ma lahan labadoodu way sameeyeen labadoodu waxaa isku keenay guur nikaaxa isku keenay so labada qof markay isguursadaan waa inay ogaadaan labada qof inay yihiin laba qof dan ka shaqeynaya dantooda danta ciyaalkooda wanaagooda so labada qof waxaa mar walba muhiim ah inay isdhegeystaan ogaadaan problemka ogaadaan inuu qofkan qofka kale respect siiyo muhiim waaye ma aha naagta in la dhaho adi naagaa tahay respect mali naagtu respect way leedahay ninkan respect wuu leeyahay at the same time so midda kaloo jirto waxay tahay soomaalideena waxaa aaminsanahay inaysan naagtu xaq nagu lahayn for example inaan naagta dili karno inaan naagta wax ku samayn karno inaan wax kas ku samayn karno sharci islaam meelay ugu jirto malaha haddaa diinta xataa kaashanayno sharci islaam in naagta la dilo meelay ugu jirto habyaraate ma jirto so labada qof waxaa mar walba muhiim ah inay noqdaan inay dad isdhegeystaan so warka inaa idinku badin maraba otaa raba inaan su-aal weydiiyo markii la imaado guriga naagta iyo ninka dhexdiisa yay kula tahay in mar walba keeno badanaa not mar walba badanaa marka waxa loo xisaabinayo average ala xisaabin ma hiyay kula tahay mar walba in uu furiinka sabab u noqon karo horta problemka laba dhinac uu ka imaan karaa haya mar walbane yacni waxaa waaye horta mar walba waxaa la rabaa horta waxaan waa iska dumar soomaali hore waxay u dhahaa dumar waa iska ciyaal ya so mar walba yaa keena ada dumarka keenaa leedahay ani dumarkaa keeno yacni 100% ma dhahayo ilaa meeqa percentaas in dumarka furiinka keenaan horta dumarkeena niyo sheeko maalmaha ay dhoon oo maqla mataqaanaa waxay tahay yacni waxay tahay waxaa lagu dhahaa waaba mataqaanaa waa kugu walacay haya waa kugu walacay ama tugaamay haya walacaasi sheekaasaa kasoo horjeeda adduunka waa la wada lacaa camo laakiin ifur iyo waa kugu walacay sheekaas waxaa waaye sheeko mataqaana oo waa kaa daali la dhaho ya waxa keenayana taasaa waxay tahay walac iyo sheekaas haddii ninka kugu walacay ifur sheeka la yani shala maxaa u guursatay inaa ku walac maahama u guursatay waa may so anintaas waa kasoo horjeedaa waa kasoo maxaa kasoo horjeedaa inay naagaha furiinka ayaga keenaan 60% xataa macquul maaha sababtii sheeg 85.9 raggaa furiinka keena sababtan waxay tahay inuu ma ogtahay inuu ilaahay anaga naga dhigay dadkii gabadha furi lahaay saddexda in anaga noo midaan ku sheega hadda maya wait let me talk ina saddexda anaga noola dhiibo ma ogtahay horta waa ogahay ana midaan ku sheego haya aniga waxaa arkay dumar badan oo yacni mataqaanaa ilaabo ifur dee maxaa keen misweydiis dhegeyso ilaabay ku dhahdeen dee maxaa keen misweydiis ilaaba ma jirto qofka bini aadanka mar haddaa wanaagsid asxaabay runtaa la iska rabaa bini aadanka markaa mar wanaagsid there is no way marka furiinka anagu ilaahay ragga haddaan nahay gacanta naga saaray kowde marka gabdhaha mar walbo qofka bini aadanka waxa adig ka keensatid ku dhaqmaa haddaa adi wanaag tusisid wanaagu kula dhaqmaa haddaa xumaan tusisid miyaa ku sheega so let me finish haddaa wait ma ku dhameeya ana hal mid kaa dhex galo adigii oo siinaysid kalgaceel jacayl saa'id ah kalsooni wax walba aad siinaysid horta dumarkan waa iska laciif laf mataqaan waxaa la feer laga abuuray saas ay tahay yacni qofay war ka soo maqlaysaa way kuula imaaneen ma fahamti
kalsooni yacni mataqaanaa aan shalay saa'idka aan siisay wiilka ma helaysid صح warayka soo maqlaysaa xaaska way ku imaanay waxay taagintaa siyaasi saafaa jirto macaanta saa maaha inta waay saan waay ma jirto sideedaaba saxanbo so فهمت ama hadla marka ya problemka ugu weyn ee Soomaalida isku kalfuran asahda afkiisa ka sheegay midaas oo ah inay gabdhaha daciifiin gabar daciif ma my friend ضعيف ku sheeg ضعيف feera laga sameeyay waxaas waa laga sameeyay laakiin daciif ma ay ku sheegay diinta sheegayso laakiin daciif ma ضعيف waxa ka wada diin ma dhinaag ninka daciif maya horta waxa lagu dhamaan dumarka oo aqli ciyaal runta hadii laga hadlo quraanka ma lagu sheeg aqli runta sababta ku sheego waxa Soomaalida inta ku fikirayso maya sababta asxaabay videoga haddoo nagu dheeraado waxaan rabaa inaan part 2 ka dhigno ma fahanteen so the video anaga ma rabna inaan nagu caystaan so part 2 gisna waa soo geli doonaa videoga meesha ka sii wadayna asxaabay adika nala sii socda de waa anigoo Axmed ah iyo walaalkay Zaki Ota ah so YouTube channelkiisana ku soo dhawaada kaygan subscribe garee like garee comment garee notification button ko on si de minikin waa ku soo dhawaada asxaabay bye